runtii maanta meeshan waxaa ka dhacay foolxumo weyn oo ah in baarlamaankii oo ah hay-adda dastuuriga ahayd ee sharci dejinta puntland saxulitaankeedii uu ka dhacay gaf weyn iyo khalad aada u weyn taasoo ah in madaxweynuhu iyo guddigii marka laga reebo guddoomiyihii oo isagu hadda arrintaa ka hadlay khaladka dhacayna sheegay ay baal mareen habraacyadii lagu soo dooran jiray xildhibaanada in badan oo ka mid ah aanse odhan karo majority dadka lasoo xuray waa ay baal mareen sharciyadii iyo saxiixii dhabta ahaa ciddii lahayd ee xaqa u lahayd inay soo xusho iyo dadku inay soo xushaan dadkii si dhaba u matali lahaa marka madaxweynuhu wuxuu ku talagalay inuusan qabanin doorasho xor oo xalaal ah. madaxweynuhu wuxuu ku talagalay doorasho dhac ah. madaxweynuhu wuxuu ku talagalay inuu iscaleyma saaro. waan ka digaynaa arrintaas khatarteeda ay leedahay.